mudanayaal iyo marweyn guddoonka labada aqal iyo dhammaan xildhibaanada sharafta leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ugu horrayntii waxaa mahadleh allihii suurto geliyey inaan halkan isugu nimaadno annagoo nabad qabna una diyaarsan inaan dalkeenna ka gudbinno wakhtigan adag si wada jira daacadnimo leh oo mas-uuliyad huwan. waxaan xildhibaanada uga mahad celinayaa inay hoolkan ku afureen kuna suxuurteen naftoodana soo qadimeen si aan maanta halkan u soo gaarno. mudanayaal iyo marweyn guddoonka labada aqal iyo xildhibaanada sharafta leh, sidaad ogtihiin 23 febraayo 2017 ayaa la ii magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. muddo 3 sano iyo bar ah oo aan xilkaas hayay waxaan dalkayga iyo dadkayga ugu adeegay heerkii ugu sarreeyey, anigoo sugay ammaanadii ummadda, casriyeeyey dowladnimada, xoojiyey isla xisaabtanka, abuuray nidaam maaliyadeed oo casri ah, ilaaliyey xuquuqda shaqaalaha iyo ciidanka, hagaajiyey xiriirka saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya, sidoo kalena muujiyey dhaqan shaqo oo aan hagar lahayn kuna suntan karti iyo waxqabad. mudanayaal iyo marweyn guddoonka labada aqal iyo xildhibaanada sharafta leh, dalkeennu maanta waxa uu ku sugan yahay xaalad adag, dhaqaalihii oo hoos u dhacay, amnigii oo sii xumaaday, caalamka oo dalkeenna ka sii jeesan raba, kalsoonidii siyaasiyiintu isku qabtay oo daciiftay, hay-adihii dhisnaa oo sii burburaya, shaqola'aantii oo xoogaysatay, abaarihii oo daba dheeraaday, caafimaad darrada haysata shacabkeenna oo sii siyaaday, iyo fikirka xagjirnimo oo sii laba kacleeyey. sidaas daraaddeed maanta dadkeennu waa naga dhur sugayaan, waxay naga mudan yihiin inaan u maciinno, daacadnimona u muujinno, eex ka fogaanno, aayahoodana ka shaqayno, ammaanadooda u ilaalinno oo aan alla ka cabsi ugu adeegno. 30 sano waxaannu mad ahaan u guulaysan weynay oo weli aan dhibka ugu jirno. waxaa loo tiriyaa qaladaad ka jira hoggaankeenna. fursadda aan maanta haysanno waa mid naadir ah. waxaan aaminsanahay in xubnaha baarlamaanku ay iswaafajin doonaan codkooda iyo dareenka shacabka. dadkeennu waxay rabaan hoggaamiye qaadi kara marxaladdan, la dareenaha shacabka, kaasoo ku hubaysan aqoon, xogogaalnimo, faham caalami ah, ammaano, oo sidoo kale sii socodsiin kara shaqooyinkii ka socday dalka si aan hal maalin dalka looga lumin, laysna waafajiyo awoodaha siyaasadeed ee dalka ka jira ee mucaaradka, muxaafidka iyo maamul goboleedyada. markii aan arkay duruufaha lagu jiro iyo baahida loo qabo hoggaan wakhtigan la falgeli kara, waan eegay xogaalnimadeyda iyo baahida dalka taalla, ogaalkayga caqabadaha taagan, muhiimadda ay leedahay in shaqadii socotay la sii wado, ahmiyadda xiriirka togan ee aan la leeyahay saaxiibbada beesha caalamka, oo aan ku kabo wixii iiga kordhay 2 sano ee aan ka tirsanaa saaxiibbada mucaaradka, iyo anigoo u diyaarsan inaan saxo wixii iga khaldamay intii aan xafiiska joogay. sida loogu baahan yahay in dhinacyada siyaasadda la isku wado, waxaan go'aansaday inaan hortiinna soo istaago oo aan idin weydiisto codkiinna si aan Soomaaliya uga gudbinno wakhtigan adag innagoo wada jirna. walaalayaal, 4 sano ee nagu soo socota waxay u tahay dalkeenna muhiim, waxay u tahay dadkeenna sidoo kale muhiim. waa 4 sano aan rabno inaan dib u habaynta ciidanka dhammaystirno,
وآفر سنة أن ربنا إن أنصو أفجرنا أرجع حسد ذلك أفيسي وآفر سنة أن ربنا إن رميت سنة دستور كاسي أن أهلنا حسلوني سياسات وآفر سنة وأن ربنا إن نكمل دلنا ولا هذا الله دولة الفدرال كصوماليا إيو ولا لهم صوماليا وآفر سنة وأن ربنا إن نجارنا دور شق في عضا وآفر سنة وأن ربنا إن دين عفنتا لما يسترنا وآفر سنة وأن ربنا إن تركرنا السنة الآن السياسات كده جرتا بدكنا وآفر سنة وجانجين دونتا مستقبل كأفرتن كسنة يسوس عض سيدا درتد سلو جارو هدف يدن وأنا لوجا فكرة عدة لودي بيوه جان كدلك وأنا لقى إيجا إنه يهاي قف يقان تي شلي تنمانت اللي جوجو فهم نكهيستا تنصاص عتبري هدي هذه دورتان وحنا من سنة هاي إن أنا هاي قفك وجوده كل بين كيني كرا جديد الدولة دي الصومالية وحنا هاي قفك قرى شرحان 6 سنة يبر وقال كدولة كتر سنة مدلل بس سنة أهنا وقال كمعارض كتر سنة سيدا درتد خبرت دو حي أبوري كرتا إسقطل سياسات إيو دولة نمو اللونية وحنا وهاي شقادة دولة هلك أي مانتا تاجن تاي وعن درسي مددي عن برنامج جوجي عقبتها إنه تاجن إيو حلكي لوجو جد بلها وحنا قانون الله هاي قاب كل ولا شقيو إيو اللقدة لقوله الله صاحبة عالم كأه إيه كالمية صوماليا دي بحبينتي عيدن كا يدي بحرينتي دلكو ماشي أنا قصو تجي أي دي بقى عضي نقاله هنا هوس أيو قد عاي هالكي أنا قصو تجي دلكي هنا دين عصب أي اللوياش سيدا درتد وحايد ديارسان قرشة دق وعن دلكي يكون جارسين كرو اسكو في الناشئ أمني يمد لغالة اللي بعنا شرفت له يقدون كلام العقل هدي هذه الدورتان وحن بلن قاضية إن عندما يصير دستورك هدي هذه الدورتان وحن بلن قاضية إن عندما يصير دي بهبين تعيرنك هدي هذه الدورتان وحن دلك كحرين دونا الشباب انت آني دمان مدحولات كيدي هدي هذه الدورتان وحن أفرتيد السنة شقا أبور كلا الدوان وصمين دونا ويرام بقول كن ورنا يرى صوماليا دا وكل جوجا جودهم قبل هذا ذلك هدي هذه الدورتان معمول قبلات والباقي قبل كبنادر وحنكدس دونا اسبتالو لقى لوجو أديك الشعبك لوجانا مارمو إن عافمات ذلك دي بدي سلقة راتدو هدي هذه الدورتان وحن رميستر الدونات بين عفنتا سدلك ويهلو ما لقاش عالمي هدي هذه الدورتان وحن ميزانية الدلك مدو 4 سنة كو جارسين دونا ويران لب بليون دولار هدي هذه الدورتان وحن إلالين دونا حسانة حلوانا دا إيو كلمة حبناني دا بارلمانكا يفوي هيدا فلندا هدي هذه الدورتان وحن كو كردين دونا قلنا دا حلوانا دا ويران صدم بقول كيبا sidoo kale waxaan gulmada xildhibaanada ku kordhi doonaa gulmo daboosha kirada guryaha xildhibaanada haddii aad doorataan xildhibaan walba iyo qoyskiisa waxay heli doonaan caymis caafimaad oo ah isbitaalada dalka gudihiisa iyo dalka dibaddiisa haddii aad doorataan waxaan tirtiri doonaa sinaan la'aanta dadka Soomaaliyeed ee ka dhex jirta siyaasadda haddii aad doorataan awoodda dawladdeeda 50% waxaan ku bixin doonaa horumarinta dawlad goboleedyada anigoo 50% fadhigaygu uu noqon doono dawlad goboleedyada haddii aad doorataan waxaan dalka gaarsiin doonaa doorasho qof iyo cod mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh iyo guddoonka labada aqal waxaan halkan ku xaqiijinayaa maanta haddii aan abni keeni waayo inaanan dib dambe hortiinna u soo istaagi doonin anigoo xildoon waxaan halkan ku xaqiijinayaa haddii aan cadaaladda ka madax bannayn waayo hay-adaha fulinta dib dambe hortiinna uma soo istaagi doono anigoo xildoon haddii aan hantida dawladda ilaalin waayo
dib dambe uma soo istaagi doono hortiinna anigoo xildoona haddii ugu yaraan 100,000 oo dhallinyaro ah aan shaqo abuur u samayn waayo 4 sano oo aan xilka hayo dib dambe hortiinna uma soo istaagi doono anigoo xildoona haddii aan dalka doorasho qof iyo cod ah gaarsiin waayana hortiina dib uma soo istaagi doono anigoo xildoona haddii beesha caalamka iyo Soomaaliya si wax ku ool ah oo Soomaaliya ka faa'iido aan isugu soo dhaweyn weynana dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xildoona haddii aan dhaqaalaha kobcin waayo deyn cafinta dhammaystiri waayo oo aan miisaaniyadda dawladda gaarsiin waayo ugu yaraan $2 bilyan oo dollar inta aan xilka hayana dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xildoona haddii aan xildhibaanada xasaanadooda ilaalin waayo oo aan gunnadooda kordhin waayo oo aan caymis caafimaad xildhibaanada siin waayana dib dambe hortiinna uma soo istaagi doono anigoo xildoona mudanayaal iyo marwooyin dhammaan xildhibaanada sharafta leh barnaamijkayga siyaasadeed wuxuu ku cad yahay nuqulka aad haysataan waxaa ku tafaftiran wax walba oo aan rabo in dalka laga hirgeliyo iyo sidii loo qaban lahaa dadka Soomaaliyeed ee naga maqana waxaan ku gaarsiinay hab walba oo maanta wax la isugu gudbin karo haddii aad fursad siisaan oo aan dhaqan gelino barnaamij siyaasadeedkan aan idin soo bandhigay waxaan aaminsanahay inaan gaari karno Soomaaliyada aan ku taamayno kulligeed mudanayaal iyo marwooyin guddoonka labada aqal guddiga doorashada madaxweynaha iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed doorashadu waxay ku aadan tahay 15 May waa maalintii dhalinyarada waa maalintii halgamayaasha SYL waa maalin ay Soomaalidu heshay hoggaan curiyay xornimo sinaan bulsho iyo dawlad loo dhan yahay 79 sano kadib waxaanu taaganahay in ajandihii SYL oo la casriyeeyay aan ka hirgelino Soomaaliya kaas oo ah Soomaali siman madax bannaan isku filan nabad ah adduunkana ula macaamili karta si qaangaarnimo leh sidaas daraaddeed waxaan si xushmad leh idin weydiisanayaa codkiinna si aan u rumayno himilada dadkeenna mirihii halgankii SYL-na loo gurto 79 sano kadib mahadsanediin ballanteennu waa inaan wada guulaysanno 15 May Soomaaliya ha guulaysato